علشان واحد جاريسا مر آذن جري كريم انت أجري كرتيد وقرنون تقانا انت اجل عنتها علشان الله بقى بود قيب وحال إذا كرو دركتو هل كان يقطع ماشان قيبنا وقيبته هوسي على اللي قصص أسموسي نفرك إيه ستريس كدتك كو عيلان أهي حوجا آد بنو يرى عيلي لكن وجودن بين الحمد لله ونكو جولستينا ميزان كي قديمه أنا جو عاف ما تقبل أنا جو ما أنتو حلو بس ما يسنكره علاشة وليش بدن يعرفون بدن يقوله سنة رنتي قول فر بدن كجاري كلنتي وعنو ونكسن داوديال ميلو بقى جوكتان كنا سودوا هذا channel كان كورنتو ستوديو وقيبتي لبعض برامج كي فرق جود حي عيل كي عاتني ماذا إلا صدق قيبود إلا أفر قيبود أنتوا إن لك جارو برامج كانوا قلت لك علي بل إنهم اللي يرد الصوماليات كوا عيجريو إن أي وحيابة بدن وقعدان عيلكو dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta uu leeyahay runtii aniga aad baan u soo arkay waana dareemaysaa dhinacyo badan ka dareemaysaa bidaarta sibiiqi kugu gashaa maqli jirtay caloosha laakiin se way ka duwan tahay lacag iyo maal ayaad gelinaysaa marka ay ku galayso aad cunaysid waxaas oo dhanna macaan hilibka macaan cuntada macaan azuumaad hadhihin sab hadhihin aroos hadhihin guri hadhihin abo waxaa la isugu faanaa hadba qofba inta uu ka cunto badan yahay ka cunis badan yahay intaasna waa iska hordhac runtii saaxiib anigu inaa iscaatee waxay ugu dhalatay waxaa jiray stress muddo ilaa 6 bilood aan dhihi karaa aan ku jiray stresskaas kadib runtii aadaan u cayilay aad iyo aad waliba كهرنا وين عيلنا لكن زائد أشياء عيلة مركا أن إسعاتي وأن استبون كان قيبتي سيكوات عن صومري وحي هيد إسلا سنة كان برتميسي وحي كدن بشي رمضان كي هوري عيرادو وحي كدن أيان إسبدل بلابي على اللي قصص أسموسي runtii isbedelka ugu horeeyo caloosha ayaan ka bilaabay iyo miisaanka labadaas wixii jir dhis ah in xaafad yar oo meeshan ka soo baxeysay oo marka garanka wadatid iyo waxyaabahaas gymka lagu dhameystiraa waa step 2 laakiin step 1 adoo soo marin oo aadan ko horta gurigaaga isku soo diyaarinin hadda gym tagtid hal maalin kadib caajisay laakiin moral ina heshito daarabtid miisaankaaga xooga soo dhin calooshaada soo yaree kadib gym takal ilaaba ugu raaxaysanaysaa runtii anigu waxaan kamid ahay dadka caloosha marka laga hadlaayo waxaan qabaa gaaska caloosha sidoo kale waxaa jira bahalada caloosha saameyn xoogan ay ugu leeyihiin waayo calooshii hadaad gaas yar dareentid dibiriyo ay imaanayso way kacaysaa bahalkii haddii oo cunto yaroo si kala uu dareemo oo iska kacaya mararka qaarkood ma daryeelaysid mana dareemaysid halkan inii iska cunay waa sii soconay marka ugu horeyso caloosha waxaan xoog saaray focuskana aan saaray bal horta ina xadeeyo gas inaanu igu kicin bataatanba lambar 2 bahal oo dhan nuusan igu kicin ba hadduu igu kacada waxaa jiro bahal leeyahay zental oo gooryaamada caloosha dhan loogu talagalay hal mar isticmaalaysaa toddobaad kadib haddana hal mar bishii 3 mar hadda isticmaasho it's enough kugu filanta laakiin hadda dhahdid bahaladii calooshan ha iska socdaan aw gas ha kaco ama yuusan kicin dibiriyo walba ha ku hayso iska soco hadda dhahdid waxa cuni kartid nacun oo waxyaaba igu kalifay caloosha runtii halisteeda leedahay waxa gelisid iyo waxa galay iyo wax ka baxay wartina ogtaa muhiim waa saameyn intay kugu yeelan lahayd calooshan waxaad gaaraysaa mar aadan jari karin inta aad jari kartid waa goorma taqaana inta ay jilcan tahay caloosha waa laba qaybood qayb waxaa leedahay kor u dharagto halkan ku taala meeshan qaybna waa qaybta hoose
dadka caatada marka laga hadlayo calool yariisa hoos uga soo baxdo dadka qaar markii kor u dheregtada ay yeeshaan calooshii laba qayb ay noqotaa qayb kor iyo qayb hoos laakiin alaabta adkaatayda ah mid qaanin aan la jiri karin aqalooriga zam hoos ku soo degayso dhiisha camale alaabtaas waxaan lahaan jiray xilligii aan tvda u shaqayn jiray oo magaaladu ii shidnayd oo waxaan ku dhahay maalin walbo hotel iyo casuumaad iyo siyaasi aa ku dhex jirtaa maalin walbo dilay macaan abo caloosha markii hadhow waa la yareynaa la unba dhibaato ay leedahay laakiin markaa waxa cunaysid macaan waa free haddee taana horaa usoo sheegee kaba sii daran kaba sii macaanba markii lacagtaada taa xoogaa xanuun yaraa jiro no sida u dareemeynin marka kale zaaid mu dareemeysid laakiin marka lacagtaada ay tahay dareemeysaa xoogaa yar haba yaraato saaxibayaal marka waxaan xooga saaray caloosha qaybta kor u dheregtada ragga lahaa ku jira kor u dheregtada waxaan ku yareeyay habeenkii markaad seexanaysid waa waxa ugu daran waayo adi waa seexanaysaa ay calool ayadan waxaa dhehe dhinac seexo markii ay caloosha ku dhinac seexato oo weliba casho aa cuntay ku casheysay wax faatiska gubana aadan isticmaalin eber waay hadda calooshaas way baxaysaa ku dhinac seexane dhinac jiifadkaaga baraneebano ayadana marka ani waxaan sameynayay qaybta oo kor u dheregtada maadaama iskaabulaan iska ah inta badan barkina intaan geliyo ama shay intaan u diyaariyo ayaan xaafadaasoo dhanba aan ku taakeenaya taako uga dhigayo lambar labo dadka qaar waxay ku dhahayaan carwaa kaasaa calooshaada gadaal u riix sawir markaa gelay sidoo kale neefta isku celi caloosha riix aa lagu dhaha saaxibayaal caloosha heeraa jirto ay samayn karto awood u leedahay inay neefta isku celiso xilli ay dhaafaysaa jirto oo aadan neefta isku celin karin markay heerka caloosha inaad neefta isku celi kartid aad gadaal u riixi kartid ay soo gaarto markaasna waxaad isku daydaa shaqo walbo aa qabanaysid oo fadhi aa ku qaban lahayd inaa istaa ku qabatid mar walbo inaa isbartid caloosha xididkan labada tiir inuu dhismo inaa ka shaqaysid neefta isku celi muku dhahay laakiin xoogaa exercise yar waxaad u siisaa in bal murqihii aada aalameytaysiisa mar walbo inaad dhab isku sii karto daqiiqado aada xooga saari karto kadibna aa caadi ka dhigi karto waayo murqahaas keliya aalamiitada keliya ma dhisayso waxaa kaloo anigu i caawiyey oo markii stebanka qaybihiisii hore aan kusoo guuleystay waxaa caawiyey garan oo bac waaye gudaha bac waaye aw banaan dhar caadi oo ka yahay haddii xoogaa zaa-id ay noqoto abuu dhinac kale loo gedisaneyno laba dhinac kanoola la dhahaa bacdaas marka waxay ku sameynaysaa baruurta faatiska dhidid ahaan ayay jirkaaga uga soo saaraysaa bacahaas kolley muqdishaa laga helaa anigu inta badan muqdishaan ka dalbadaa weli magaaladan isma fahmin miya ma og garanka magacaasaa ku qoran ma arki kartiin xoogaa leerka zaa-id ahaa hadda inaa ujeediina umalayaa waxaa ku qoran sweet shaper aa ku qoran caawle akrinooya waa iska gashi jirle weliga isticmaali jir markaas cateynayo saaxibayaal ayadoo waxaa jiro shaar ama jaakad iyo surwaal iswato oo wada bac ah way jirtaa qofkii lacag haysta le kolley waxaas un soo gadan karo waxaa kaloo isagan i caawiyey marka laga hadlaayo bahalkan xarigan lagu boodboodo gurigaaga ku dhex jirtaa space aad ku boodboodi kartid unbaa sameysanaysaa spacekaasa isticmaalaysaa ayadana runtii aada bay caawisay marka waxaa ugu muhiimsan exercise yar inaad gurigaaga ku sameysid muxuu ahaa kadibna gurigaaga markaa iska dhisto inaad banaanka aado waxaa jira marka dhowr mar oo anigu aan iscaateeyey aan ku guuleystay inaan iscaateeyo waxaan umaleeyaa qeybtan labaad qeybaha kale jimki waxaasan la aadi doonaa laakiin qeybtan ka sheekeynta 20 daqiiqaba ha gaartee qeybtan intaan ku dhamaystiraa kadib wixii adinkaa u baahataan ayaan kadib cashir idinkaga soo sameyn doonaa ama barnaamij idinkaga soo diyaarin doonaa waxaa dhacda dhowr kamar oo aan iscaateeyey waagii hore horta ma kala jeclayn 2006 dabayaaqadeedii
ayaan warbaahin ka shaqo bilaabay idaacado idaacadaha marka ay joogtid waliba qaybta warqabadkan ku qornaa jiray xafiiskaas talaagad yara taalo oo biyihii caafigii wixii oo dhan leen iska qabow oo ku dhex jirtaa bagaalo ma aadaysid wareeg ma aadaysid abuu waa sii cayileen magaaladii haddana markaan soo galay haddana zaa-ida usii cayilay markii ugu horeysay oo iscaatayna aan dhahay dad lamaanan tashan iscaatayntaba horta inaa xog ka haysatid waay waxa kuu roon iyo waxa kuu daran ani keligeeda go-aansada saaxiibyaalo ay idinka dabageeyeen waxaan sameeyey maqaaxi waxaa jirta isa saar la dhaho suuqa bakaar ku taalo maqaaxidii buugaa iiga furan waagaa waxaan u shaqeynayay ETN TV oo hawada ka baxay dabayaaqadii 2009 meelahaas aan u shaqeynayay subaxi waxaan cunayaa ama isbeyso faray ah ama lug faray ah hilib aan cunaa duur hilib galabkii marka aan ka soo rawaxay hilib cuntada waa jooji briefly basta waa jooji waxa aaminsanaa taqaaniin ina la caatooba ayaa aaminsanaa maxaan cunayaa بروتين اللي اسكو حاقو يا هيلي waxaa kaloo iyana jirto bishaan wixii aan cuntid bisha kale ka soo baxay bishaan wixii aad samaysid cayilkeeda maanta macnaa aan cunay borotiin badan maxaa maanta hore ka cayili iyo maanta aan aalmiteeyo maanta caatooba ma jiraan wax walbo it takes time next month ama 2 bilood kadib ayaa waxaa la arki doonaa haddaad bishaas iscaateysay oo cunooyin fitamiinka ku badan yahay oo borotiinka ku yar yahay oo aad dheelitir cunno aad sameysay bisha kale ama bisha kale ku xigto ayay bulshadu ka dareemaysaa laakiin marxaladaas marka aad ku jirtid wax kasta waay lagama dareemayo lamana ogaanayo abo hilibkii marka aan bil cunay bisha kale ku xigtay noqdo ma kasii ilaahay sawirkii waagaas laga qaaday idin tusiyo abo meeshaan زائد كالإلاب إنا أنت أجلس تحتوي دبي على شرط حساب تبو يوجد تبو حافظ كله نقطة أيضا دم صاحبي العنوين إنا كلابرتان وحيابا عاطد لغو نقطة وحيابا لغو عيلو مدى كلاباهين هايسكو دلين كلما جرك هاga aabahi ku disho tusaale ahaan waxaan baahnaa subaxi ilaa galabki maxaan rabaa mataqaana ina iscaatee goorma wax cunay hal waqti wax cunano halka waqti jirkaaga u baahan jirkaaga galayaan waxa halka waqti aad cunaysid iscaateen ma aha ragga halka waqti wax cunow waa khaldantihiin 5 waqti ka dhigta wax cunista ama 3 waqti naftirkeeda ka dhigta laakiin 3 waqti cunno fitamiin leh oo borotiin aan ahayn cunno faatiska gubaayo cunno weight lose wax la jiro ku sameeynaa adiga oo miisaanka ka dhimaayo cunooyinkaas marka aad muxuu ahaa isbedel ku sameeysid kadib isbedel waa dareemaysaa laakiin haddii aad dhahdid hal waqti la wax cunaan waa iscaateen oo yaa halka waqti maxaa la cunaa ku say ha bris am full bris la cunaa abo jirkaaga la galayaan oo ku sii cayilay mooyaane ma ku caatoobeys ina guuleystid daarabtid 5 times per day cunto fudud oo aan waxba ku dhimayn calooshan ha buuxinin cadowga caloosha waa ina buuxisid dhowr mar aan ku guuleystaan ina iscaateeyo markii aan ku guuleysto ugu horeysay xiligaas xasan aha aan lahaa anima ahaya xasan lahay sheekada ay quluucina dhow marka waxaan ka codsaday maadaama aan ahay mas'uul aabi guriga aan ahay waxaan ka codsaday muddo 3 bilood inaan wax cunaa leeyahay talagelin oo leeyahay tashan waan ku guuleystay wixii aan u baahanahay in la ii sameeyo subaxi waxaan qaadanayay biyo kulul iyo liin dhanaan barqadii oo kale muxuu ahaa sidoo kale biyaha kulul iyo liintan isticmaalay wax yar oo fudud ayaan marka shaaxaas ku kabanayay duhuradii wax yar oo fudud ayada naftirkeeda cunayay bahasha la yiraahdo ansalaatada ama saladka waxa waaye inaba caadi ma aha dhakhtar ila wadaaga hada ka hor dhakhtarkaas wuxuu igu dhahay isbitaal banaadir oo ka shaqeynaa haadan u cayilnaayo dhahay wuxuu dhahay muddo waxaan isku qoray naftirkiisa is qoray jaranjarta hadda laga dago jaranjarta dabaqa 12aad duu saaran yahay wiish ma sugaayo no xiligaas wiish ma jirin ba lugta dhulka lagu soo dagaayo doorkii wuxuu cuni jiray ansalaato baasha la yiraahdo ansalaatada
baruurta aad ay u gubtaa fruitiska inta badan waxa ku jiro qudaar badan oo fruitiska gubto intee la gubo fruitka maaha baruurta gubaan ay ku jiraan qudaar badan ay jirto marka wuxuu dhahay dhakhtarkii ansalaatadii sanduur walba cunaayay oo aan u joogteeyay waqti walba oo duhur la gaar ansalaatadii saa cunaayay oo aan jaranjartana uga soo dagay lug waacato oo dhahay xilliyada kalena cunooyin fudfudud oo isticmaalay meeshaasna waxaad ka dareemaysaan ansalaatadu inay muhiimad gooniya leedahay malabka asagana sidoo kale marka aad biyaha kulul aad ku darsato sanjabiilka asagoo sidoo kale marka aad shaaha ku darsato sanjabiilka midka qoyan waliba oo la tumo kaas aad muxuu ahaa isha focuska loo saaraa liinta aad bay muhiim ugu tahay baruurta inay gubto waxa kale oo iyana muhiima socodka aad ayuu bini aadamka muhiim ugu yahay tallaabada aad qaada daymada ilqabad isku day haddaad u socotid meel qalab aadan wadin culays aadan wadin waqti uusan kugu soconin waa ogahay waxaad diidaysiin inaad dhididaana diidaysiin aniga 24 saac waxaa iigu jirta bahashaas gudaha bacay ka tahay banaankana dharay ka tahay meel walba aroos walba haddii arooskaas intaas saac u yahay dhididkayga abuu hoos iigu baxaa oo u baahanaa dhididkaas lugay bangani iyo islii haddaad joogtid qofaa la sheekaystid sii wado airport haddaad wadatid dhagaha intaa gashatid waxaa shidanaysid oo kugu socon karo shido dhag dheh bangani lagu tag ilaa backlana lagu tagaa Southsea ragga qaar lagu tago townka ciidaha wadankan iskale subaxii 12 saac horta ka soo kacaan lugay ku tagaan townka galabkiina xilli fiican ay soo baxaan lagu tagaan guryahooda waa qaar ka laakiin rajada iska qabo qofka duu rajo beel ku dhaco runtii alisteeda leedahay marka waxaan idin waday sheekadii iscaateynta sheekooyinka marba waxba soo dhaxgalaayo runtii waan ku guuleystay inaan iscaateeyo muddo 3 bilood kadib laakiin dhibaatada xagee ka dhacday ma taqaanaan markaan iscaateeyay iyo waxa isku soo aaday anigoo barnaamij muddadaas diyaarinayay dadka la nool xanuunka HIV/AIDS-ka ee magaalada Muqdisho xaruntii oo lagu xanaaninayay hay'adda gacanta ku heysay iyo isbitaalka Banaadir qeyr fara badan Allah siiyo Dr. Salul Maxamuud Maxamed markaas aad ila shaqeynaysay oo dhaqaatiirta isbitaalka Madiina iyo isbitaal Banaadir ba waxay kamid ahaayeen dhaqaatiirka aad ku wada shaqeynaynay duniya oo ayadana halkan ka salaamayo marka TV-ga markuu soo fuulay barnaamijka HIV-gi iyo waxa isku soo aaday anigi oo normalkii isku soo celiyay alxamdulillah calooshi iska cunay miisaanki iska dhimay meeshan qofku inuu cayilin horta meelaha ugu horay dadka caatada wali markay soo cayilana lagu gartaa marka inta ay soo noqoto labadan xab mukulaal oo ay kaatid oo muxuu ahaa ishaag iyo marka aad dhintid farqiga u dhaxeeyo hani hadda barnaamijyada oo qaar aan clips ahaan soo gelgelinayay oo xisaab wararka aan u sameeyay qaarkood hadda marka arko isla yaaba meelaha aan marayo qanjooyin muuqaalkayga wajigaan hadda alxamdulillah ma sha Allah waliba inuu inta ka sii qurux badnaado intaan aan ka sii dhubta rajeena marka maxaa la lahay barnaamijka markuu TV ka baxay koronto dadkan aniga markii ay bilaabatay bulshada ku gasaabo dad badan oo xanuun aan qabin xanuun ku rideen dad badan oo sokor aan qabin sokor ku rideen anima waalayaan marka abu hal billah hadan ugu qaadatay inaan dhag intaas iyo cuntadeedii wixii jirkayga caadigiisa ku soo celiyo ya ka sheekeynayeen sheekay inaan bilaabo anigiba dhexdaas barnaamijka markuu socdiyaa ka sheekeynayeen xilliga barnaamijkaas YouTube ku jira Somali channelkaas ku jira xilliga Somali channel lanaha mar kale oo waxaan ku guuleystay aan Muqdisho u socday xogaa challenge jiray waxaas laaniyo muddo waa yara cayishay bal isdin waxaan u tagay dhakhtar waaga eedka ku yile Nairobi dib ka jir mataqaani saaxiibayaalo bildina ku ogeyd dukaan waxa laga dhiga wax kale bildina ama qaaxi ku ogeyd waxa laga dhigay farmashiya laga dhigay meeshii farmashi ku ogeyd wax kala laga dhigay wixii oo dhanba guri la dhisay guri faaruqna ma harkoon waxa jirta marka dhakhtarkaas wuxuu soo siiyay kaniin abu habeenkii oo dhan musqusha ku jireen kaadi adkaatay waa sheekada wixii baruur ahaa ee jirkayga ku jiray abu habeenkii aan deynayno anoo shaqo subax iska leh haddana habeenkii oo dhan musqusha ku laabanay abu waxaan noqday wiil yariis aan noqday
laakiin markaan xamar tagay ayaan waxaan isku aragnay team Nairobi oo wariyaal isku aragnay warbixin iga keeneen waxay dhaheen ninkii koronto ahaa oo intuu stress ku dhacay dhamaaday baaba ilaa marka ayaga la joogay muxuu ii sheeg ma ahayn xilligii uu soo ibbaxayay cayilkii caatanimadii iyo miisaankii aan dhintay waayo waxa waqtiga qaataan inta aan xamar tagayana marka aan diyaar garoobay un baa xamar tagay markaan xamar tagayna ismaan arag waxaa jira markaan Nairobi soo laabanay xoogaa waa soo yar celiyay muddo 2 sano ah oo aan dhex mashaaxayay marxalado kala duwan iyo family problemna ayadana xoogaa dhafarka iyo stresska dadka ku cayilaan ahay xoogaa aad baan u yara cayilay laakiin ugu dambeyn alxamdulillah waan ku guuleystay inaan miisaankayga dhimo anigoo caafimaad qabo anigoo maanta wax walba samaysan karo caloosha culeysyo badan iyo arrimo badan ay ugu haysana runtii guul fara badan aan ka gaaray dadaalka hadda aan sameeyayna runtii qof ayaa ka dambayso dhiirigelinteeda ayaana kusoo gaaray haddaana qofka bini aadanka gadaal qof uusan ka taagnayn oo la dhahaynin hore u soco dadaal kan samee runtii guulo badan oo hadda aan rajeynayo inaan gaaro iyo qorshayaal badan oo hadda aan rajeynayo runtii qof baa ka dambayso qofta ka dambaysana hore leegama baran inaan baraha bulshada keeno laakiin hadda diyaar waxaan u ahay inaan idin hor keeno inaan idin baro haddii Allah awoodale uu qadaro guulaheeda markii u dhameystirmaan iyo guulaha aan leeyahay markii meel fiican soo gaaro ayaan idin hor keeni doonaa waxa aad rabtaan su'aalaha isoo weydiiya barnaamijkan haddii aad rabtaan barnaamij kale inaan idin kaga soo sameeyo wixii dhiirigelina waa adinka xageena saaxiibayaal tan iyo kulantideeni dambe barnaamijka xiga inaan dib u wada kulmi doono waa Cabdiqaadir Koronto idin leh iscaatay cayilku faa'iido ma leh